daawadayaal waxaynu ku guda jirnaa safar 2 saacadood ah waxaynu ku sii jeednaa gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan Ras Kamboni waxay la socdo cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga gaar ahaan ilaala qaran ila soco ku dhawaad saacad iyo bar safar soo qaatay hadda ayaan soo gaarnay halkii bartilmaameedkeena ahaa Ras Kamboni halkan waa gobolka ugu hadalhaynta badan 2024 Soomaaliya waxaan la socdaa cutubyo kale oo ciidan oo halkan maanta ka soo degay horey waxa halkan u joogay ciidanka gorgor iyo sidoo kale haramcad kuwaas oo halkan howlgal ka sameeyay waxa maanta ku soo biiray ilaala qaran oo sidoo kale kamid ah ciidanka xoogga halkan waxa ku soo dhaweeyay taliyaha guutada 18aad ee gorgor gaashaanla dhexe Xasan Iraaqi waxaana uu faahfaahin ka bixiyay sababta ciidankan loogu soo diray gorgor iyo haramcad oo halkan ku sugan dhammaan saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableyda xoogga dalka Soomaaliyeed oo waxa weeye saaka maxaa ka soo degay garoonka Ras Kamboni waxaan leenahay soo dhawaada dhammaan waxaan ku soo dhaweynaynaa hadii ilaahay xoogga dalka Soomaaliyeed muxuu hadii ilaahay gacmo furan iyo hadii ilaahay yiraahdo qalbi wanaagsan iyo waajibaadka qaran oo ay gudanayaan hadii ilaahay yiraahdo waxa weeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed bad iyo berin iyo xuduud iyo meel kasta waxay xaq u leeyihiin in hadii ilaahay ka hawlgalaan annagoo fulinayna hadii ilaahay waajibaadka qaranku na saaray waxaan leenahay hadii ilaahay yiraahdo muxuu maaragtay waa inaynu ka midho dhalino hadii ilaahay la wareegida waxa weeye hadii ilaahay goobaha ay admis ka baxday laba waa inaynu hadii ilaahay yiraahdo muxuu ka hawlgalo cadawga deegaamadan inta badan haystay labada option baynu inagu hadii ilaahay yiraahdo u joognaa hadii ilaahay yiraahdo deegaanka Ras Kamboni ciidankani waxa weeyaan muxuu ummad Soomaaliyeed ma uu weerarayo ciidankani waxa uu qorshihiisu yahay hadii ilaahay yiraahdo inuu shabaab la dagaalamo inuu hadii ilaahay yiraahdo la wareego muxuu mas'uuliyadda amniga Soomaaliya waxaan rabnaa marka hadii ilaahay yiraahdo inaynu labada arimood aynu xaqiijino inaynu hadii ilaahay yiraahdo ummadda Soomaaliyeed daacadnimo ugu shaqeyno inaynu hadii ilaahay yiraahdo gudano waajibaadka qaranka Qaasim Ismaan Nuur waa mareeyaha Ras Kamboni Airport halkan ayaa kula kulmay waa sidoo kale waa nin deegaankan u dhashay oo in badan halkan ku noolaa waxa uu ii sheegay in markii ciidamada AMISOM ay admis halkan ay isaga baxeen oo yimaadeen ciidamada xoogga dalka gaar ahaan gorgor iyo haramcad in ay ku farxeen in ciidamada halkan ay yimaadaan oo ay buuxiyaan booskii shalay ay ugu jireen admis iyo sidoo kale ciidamadii kale ee halkan joogay waa maasantihiin sida aad nooga soo gurmateen nimankii admis oo deganaana waa naga guureen annagoo kale guur ku jirno yaabanay noo imaadeen dawladda waa ku mahadsan tahay waxaa jira xanuunaha meel loo qaado malaha waa la waayey marka wax walbana waa naga jarnaayeen oo adeeg ah maadaama ay dawladda noo timid waa u mahad ilaahay mahad iskale laakiin ka soo waa u mahad celinaynaa Axmed Salaad warbaahinta qaranka Ras Kamboni Jubbada Hoose